Three Lions waa ka markaan luuqa lagu heystaa in ka soo ciyaarto weli ay gool la'aan tahay meel fiican Jamal Musiala laakiin waa la jiiftay Shafto ayaa markaas soo kale la jiiftay Marco Reus ayaa lagu xasuustaa xulkan kulankii finaalkii koobka adduunka kaasi oo Argentina gool soo daahay waliba extra time-kii wadnaha jaray Kimmich Havertz waa ka markaan Kai Havertz oo uu soo celiyay meel fiican Alex markaan goolka والله شو وكا ولا جول وجول على فلقي كرين وجول أنفار بيع كرين وجول عاد أقرأ بدن حلقة جرماني أيا وقدم بن وجاي كله بريجي كبد عاد أقرأ هنا أيام مركان أيد والله قبل تري لايونز ولي بقول عاد أقرأ بدن يرتوق مركز كلا لو مقعد جونسون هافن أيها شبكة جاري وحبا ملقي قبل كره جول كان قابكو دليي قابكو كبد مركز كلا لو باسي وروحانو كلا وحالو قلت الماما كبد قالت كبد قالت أي لو قلت الماما تايرياش جرماني مركان واقعا تايرياش جوان دقموين كقوال كبنادر كوا سيدو كلا جوان قوال الدلكا يكو مركز سيدو كلا عيارتان داوانيان جوغا اي كاكاين محالي هوغانك اي غبتين بل فير قول كان وحان كو تلمام واواي قول كان هل قولو دلي لبكولن يارتوغان نيكالاغو مقعابو Which is not the concern of 29-year-old Jonas Hoffmann, who has his third international goal. إنجليز كسانة حالك أميادة. Home and away against Armenia in World Cup qualifying, denied one. إنجليز كسانة حالك. In the first half, but nobody's taken that one away from him. As you say, there just seemed to be a wobble, didn't there? Lateral movement on the ball. إنجليز كسانة حالك. وكان إنجليز كسا وجدين وا. إنجليز كان ولا سو عيار ولا عيارتين سو مرتين جيمي كراجا فرانك لامبارد ديفيد بيكهام ستيفن جي وين روني يتابعوا يعني دتكي او يرتوي وساميت بدنا او هانغري هالجول سو عليه مركان تلياني هالجول لا سو عليه لبا جول اي كدغين xulka هانغري والله هانغري السنه كان xulkan فيري meel fiican on goal ay iska dhaliyeen xulka Talyaaniga on goal ay iska dhaliyeen ciyaartoy waxa lagu magacaabaa Johnson Havon wuxuu dhashay 14 bishii July 1992 waa professional football marka la fiiro horyaalka wuxuu sidoo kale ka ciyaaraa Bundesliga dalka Germany Borussia Mönchengladbach ayuu ciyaaraa Pellegrini waa ka markale halka Neuer ayaa kubadaas soo qaaday wuu calay Borussia Dortmund ayuu soo maray 2022 Hoban halkaas uu sidoo kale ku soo qaatay contract for Borussia Dortmund iyadoo ilaa iyo 30 bishii June 2015 uu halkaas joogay Borussia Dortmund kulan markaasi dhacay Agosto 6deedii soo kale Chelsea waxay doonayaan Gabriel Jesus Arsenal ku garaaci karaan ninkan markoo Haaland imaaday hadda waa inuu meesha ka tagaa asagoo Haaland joogina hadda ninkan keedu ku dhameysay jire oo Guardiola ma ciyaarsi kara hay waa ka markaan igla meel fiican soo dhigay dalka wow what a chance what a save How on earth has that stayed out? That's why he's a world-class goal. beel fiican loo soo dhigay si fiican ayuu tuuray kubadda laakiin banaanka walla Grealish wax badan oo ciyaarta ka bedelay kiin wuxuu rabay kaliya in kubadaasaan loo soo dhigo Trippier oo si fiican u soo karoosay laakiin waa goal kick Harry Kane was bal fiir kubadan Great ball by Jack Grealish. Kane's got the whole goal. And Neuer knows that. All he can do is get as far in front of Harry Kane and make himself as big as possible.
That's not a save, that's a world gool ayuu u qalmay goolkan talk about goalkeepers saves and that's when you see a ball from a distance or you gool muku imaada like gool muku imaado times in training he puts himself and his body in the right area and his quick feet enabled him to get there. Mane lagu daray Salahna Liverpool labadaas ciyaartooy ayay lumin doontaa Mane waa Bayer Salahna waa Spain Barca ama Real midkoodu aadi doonaa wax kale oo anaga u jeedina laga yaabaa inuu u jeedo garsoorka afeerno maya Rigoro hay waa la dhigay penalty Rigoro loo dhigay markaana xulka England waa soo noolaan karaan waa soo noolaan karaan Tonoli iyo waa badiyaan waa ka Talyaani hadda groupkan hogaaminayo wuxuu leeyahay waa Germany hogaaminaya hadana gool uu hogaaminaya miya min 4 dhibcood leeyin hadii hadda la bareejeeyo Talyaani la bareegi doono hogaanka marka England waa nool yihiin laakiin kulan kale ay ciyaari doonaan Talyaani Ingiriiska waa kulan kale xiiso badan Talyaani Ingiriiska Harry Kane iyo Neuer ayaana markaan sidoo kale sheeka dhaxtaala sheeka ka dhici doonta halkan Harry Kane rajadii England lugtiisa ku jirta 86 daqiiqo iyo 7 daqiiqo ayaana penalty markaan loo dhigay Harry Kane وصل لابتن مركان إنجليزكا 50 England goals for Harry Kane who leaves behind the great Bobby Charlton and now only one man in history has scored more goals for the Three Lions than the current England captain, the irrepressible Harry Kane. It's one each. Yeah, he's gone for his safety penalty. We all know where he likes to take his penalties. The information that goalkeepers have now, Neuer will have known exactly where his last 10, 20 penalties will have gone. And if you analyse Harry Kane's penalty, that's his favourite one. Whipped into his bottom left-hand corner, away from the goalkeeper. So it's now a mind game more than ever. Neuer knows which is his favourite. Harry Kane knows that Neuer knows which is his favourite. So then it's a mind game more than ever. Neuer's gambled and gone the other way. Kane's stuck to his favoured side, gone with pace and power,